السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا لذلكين بميل كستو الدنيا كجوكتين أدبان إذن سلامنا هالك أدنى قد دعوانيسان وهاتريك أوفيشيال هدايتها مركا وكوغوري سيا صوبو قطة channel كفضلا سبسكرايب سار قبل الكفرو سيا دولا سعوطة برنامجيدا أنك أنسوق لنو هدي أدنى جوكتين فضلا لايك iyo sheerta nagu caabi comment fiican naga bixisay markaas aan ugu dhiirino in barnaamijyo aad u qurux badan idin soo diyaarino hadaba daawade barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa dhibaatooyinka fara badan ee ku haysata dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay ka tahriibaan wadankooda una tahriibeen wadan shisheeye dalkeena ayaa ku soo badanaya in ay markaas ka tahriibaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyagoo markaas ka doonaya dalal shisheeye in ay jirto shaqo fiican iyo waliba nolol aad u fiican laakiin taasi maahan waxa jirta fursado kala duwan oo markaasi ay yaala dalkeena kaasi aan ku maareyn karno nolosheena iyadoo dhalinyarada ay u arkeen inay markaasi wadan shisheeye nolosha lagu maareyn karo kaliya laakiin taasi maaha dariiqa saxda ah ee markaasi loo baahnaa in dhalinta ay maraan waxa jira kumanaan arday oo wax bartay hadana aysan aaminaynin wadankooda kaas oo loo baahnaa waxa ay barteen inay ugu faa'iideeyaan markaasi ayay ka cararaan wadankooda iyagoo dhibaatooyin fara badan mara qaarkood way ay ku dhintaan qaarkood way ay ku badbaadaan kadibna waxa ay galaan kam ama wax loo yaqaan xiro markaas ayaa waxa ay sugayaan in guna yar ay ka qaataan wadanka ay iyagu iska dhiibeen laakiin xaqiiqda dhabta ah ayaa markaasi rabnaa inaan ku soo saarno videogan waxa jira muuqaalo fara badan aniga aan daawaday taasi ayaana qiira igilisay inaan barnaamijkan soo duubana igu kaliftay hadaba markay wadanka ka tahriibaan dhalinteena Soomaaliyeed maxaa ku dhaca markay u socdaan wadankii ay rabeen inay u haajiraan waxa jira nin lagu magacaabo Magafe hadaba muxuu ku sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed xaqiiqatan waa ka damqanaysa marka aad daawato videogan hadaba markii uu Magafaasi dhalinyarada gacanta ku dhigo ayaa wuxuu ku raadiyaa lacag fara badan ka uu markaas ku iqaabo ilaa laga soo diro lacagta uu dalbaday dhanka kalena maxay dareemayaan waalidiinta markay ay arkaan caruurtooda oo la dhibaateynaya waalidiintaasi waxa ay dareemayaan dhibaato aad u fara badan kadibna waxa ay rajeynayaan inay ka soo bixiyaan markaasi gacanta Magafaha laakiin taasi uma suurta gasho badankood waxa lagu iloobaa godad fara badan oo jira Magafa uga dhiga in dadku ku iqaabo hadaba daawade aan daawano muuqaaladan kadibna aan aragno mid ka fiican in wadanka laga haajiro in la iska joogo hadaba waa kan muuqaalkan waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo markaas lagu iqaabayo meel banaan kadibna lagu kalifayo inuu hadallo kala duwan ama maskaxdiisa hataa keeni karin uu dhaho ogow hadaba lagu lama hadlayo luqadiisa ee waxa lagu la hadlayaa luqad kale saasay tahayna ma fahmayaan turjumaanna kuma jiro dhexdooda balse waxa ku socota iqaab فلوسك تحول ولا ما تحول فلوسك؟ حول الله اكبر لا اله الا الله حول فلوسك الله اكبر لا اله الا الله حول فلوسك ايوه حول خلاص 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 شنو تمام شنو حول فلوسك خلاص الله خلاص حول فلوسك نيكو الله خلاص وشك هنا يا زامل يا بس كفي يا اخي لا اله الا الله يا كفي نيكو قد بعد فينك يكفي خلاص يا اخي ود الشرموطه حول انا حول waxa lagu la hadlayaa luqad Carabi ah isagana wuxuu ku hadlayaa Soomaali kadibna wuxuu rabaa inuu yiraahdo igada garaacista waxaan wala soo diri doonaa laakiin ma yaqaan luqada saasay tahayna wuxuu isku dayayaa inuu hadlo oo iska celiyo qofka markaas garaacaya يا صوت راي داية انت ودي الشرموطه ايوه صوت راي يا صوت راي يا hadaba su'aashu waxay tahay daawadeen ma ku doorsan lahayd xuriyadii aad haysatay noloshii barwaaqada ahayd in markaas aad gacantaada isku iqaabto aadna qof shisheeye gacanta u gasho kadibna uu kugu sameeyo wax kasto isaga rabo hadaba kan wuxuu ahaa rag aan eegno dumarka iyaguna sida loo galo korkayga oo dhan wuu googaa wallaahi jirkayga dhiigayga oo dhan dhacaan buu isku bedela meeshaan waan ku sircaabeen waad u jeedaa dhibaatada lagu hayo dadka markaas ka baxa wadankooda
una tahriibayo wadamada kale moodana inay wax fiican jiraan ayna ka tageen yaqiintii dhabta ahayd oo la rabay wixii loo qoray inay meeshooda ku sugaan gabadhan waxay tiri dhiigaygu wuxuu isku bedelay dhacaan waa muuqaal aad u foolxun damiirkana kuma siinayo inaad daabato qof dhiigaaga ah markaasi la dhibaateynayo waa wax laga damqado aan sii wadno ميالي قد بصير أنا مقرنة هو إذا الدمع يصل عند ماشي دقيقتكم مترين إلى درتي زي عاوي إلى كدارتي إلى درتي زي عاوية والله بلا عافمتكم نوري عافمت waxay tiri haddii hooyaday lacag haysan lahayd maanta daqiiqad kuma jiri lahayn halkan way ogeed in waalidiinteeda aysan wax lacag haynin laakiin waxaa laga dhaadhiciyay in wadan shisheeye uu jiro waxyaabo fara badan nolosheedana ay ku maareyn karto laakiin waxay ka heshay wax abidba maskaxdeeda aysan gelin markay ka tagaysay wadankeeda caafimaadkum nooli caafimaadkayga ma garanayso aniga dhanba waa isku dhacayaa waa isku qalqalay ilaahay dartiisa lii caawiyo ilaahay dartiisa lii caawiyo waayahay marka la arko videogan qofka muxuu dareemayaa adigoo nolol qurux badan ku jira in aad ka tagto kadibna noloshii aad u baxday aad heli weyso Soomaalidu waxay dhahdaa wax badsi wax beel bay leedahay tani haddana haysato ayaa sidaasi ah daawade muuqaaladan nama siinaya dareenkeena inaan sii daawano maxaa yeelay waa muuqaalo aad u xanuun badan marka qofku uu daawanayo haddaba waxaa jira dadka halkee la isku geeyaa markii la wada qabto dhalinyarada looma fiiriyo inay yihiin hablo ama inamo waxaa la iskugu keenaa hal meel weliba iyadoo muuqaalkooda bedelmay kuna andacoonaya nacaawiya bal eega ilaaha idinku dhaariyay sida ay wax u socdaan qofka xorriyadda haystay haddana markuu ka tago meeshii uu xorriyadda ku haystay ayaa waxay noqonaysaa in loola dhaqmo sida xoolaha oo kale tani hadda maxaan dhihi karnaa ma dad baa meesha lasugu keenay mise waxaa loola dhaqmayaa si ka duwan sida bini aadamka loola dhaqmo ila daawa adiga سلمان والله maalintii marka la soo hesho intaana la siiyay wanan baa naloo qalay dhibaatadii iyo caqabadii hore wana laga daayay walaal waxaan ka codsanaa walaalaha Soomaaliyeed dhibaataysan baan nahay inaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha aad noola hadasho oo aad dhibaatadan iyo caqabadan haysatana laga saaro hadii dalkayga noo celiyo xataa raali baan ku nahay markuu xorriyad markuu yahay la siiyo xorriyad la'aan baan nahay sidii hal waka hadda ayaa wuxuu dib u milicsanayaa meeshuu ka yimid taasina ayaa ku tusaysa markii aad ka tagto meeshaadii laga jeclaa lagu ixtiraamayay jinsiyadaadana lagu ilaalin jiray meel kasta aad martana laga ixtiraamayay ayaa maanta waxay noqotay markaas inaad dib u milicsadaan waxayna fariin u direen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxayna dalbadeen in dib loogu celiyo wadankooda ma rabaan inay u sii socdaan hore laakiin wadankoodii ayay dalbadeen taasi waxayna ku tusaysaa markii adigoo aad cashar ka barato nimcada adiga aad haysatay markaad ka tagto daawade haddii dhalinta sidaas lagu sameeyay waalidiinta xanuun cankee ayay dareemi karaan marxaladee ayay ku sugan yihiin waqti xaadirkaasi bal waa kan ila daawo mid ka mid ah waalidiinta oo ka warbixinaya dareenkooda raadinayana xalkii ay ku soo saari lahaayeen ubadkooda waxaan ahay hooyo dhibaataysan oo qaxootiga dhadhaab ku nool oo gaar ahaan ifa ku nool walaalayaalo waxaan idinka codsanayaa gabadh yar oo aan dhalay oo agoon ah
oo nimca suldaan cabdiraxmaan baa aniga la yidhaahdaa gabadhayda waxaa la yidhaahdaa sumeyo jaamac keena diid baa la yidhaahdaa gabadh yar oo miskiina oo 15 jir oo iskuulka daari xigma ii dhiganaysay qaxootiga dhadhaab ayaa hooyo macaanow iga tagtay oo iga carartay oo iga aaday liibiya oo liibiya iga gashay oo maxay ahayd 8,500 oo dollar oo lacag keen baa la yidhaahday 8,500 oo dollar oo lacag ma haysto haddaba daawada waxaa la weydiiyey 8,500 ogow waxaa usii dheer murug fara badan xisaabtana ku darso meel ay lacag ku og tahay ma laha waxayna u damqanaysaa ubadkeeda haddaba sidaan maxaqba waa agoon aabba male ehelkii iyo adeeradeed baa wadankii wacay waxay yidhaahdeen waxaan hayna male hebel wiilkiisii baa maqan oo hebel wiilkiisii buu hayaa gabadhaada waa kugu keli waxaan hayna iyo waxaan ka bixin karra male baa laygu yidhi hooyo macaano waxaan idinka codsan dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan dunida daafaheeda bishii rabada khayrkan ku jiraa bisha khayrkan ku jiraa ku fidri ii heli kara ku sadaqa ii heli kara ku waalidkii oo dhintay ma sii daawan karno maxaa yeelay qofka damiirka lah wuxuu isla markiiba dareemayaa inay dhibaato fara badan jirto wuxuuna raadinayaa xal in uu qayb ka qaato sidii markaasi loo badbaadin lahaa dhalintaasi Soomaaliyeed oo markaasi magafaha wadada u fariistay haddaba waxaan rabaa inaan barnaamijka ku soo gunaanido xoogaa yar oo markaasi dhiirigelina waxaan leeyahay dadyooga Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada in ay aaminaan wadankooda ee markaasina samaystaan fursado badan oo wadanka yaala loona baahan yahay cid ka faa'iideysata teeda kale waalidiinta Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa ubadkiina waxaad ka ilaalisaan faraaqada maxaa yeelay qofka wuxuu fikiraa markuu faraaqada haysto haddii la mashquuliyo ubadka waxaa laga yaabaa inuusan marnaba ku fikirin waxyaabahan oo kale haddaba daawade haddii aad aaminsan tahay in videogan uu u noqon doono dhiirigelin in ay dhalinta ka haraan tahriibka waxaan kaa codsanayaa inaad sii gaarsiiso kumanaanka qof aad og tahay inay maanta isku diyaar gareynayaan inay tahriibaan oo wadanka ka baxaan aadna sabab u noqoto dhalinyaro fara badan oo markaasi ay ka badbaadaan ciqaabta uu magafaha u geysanayo waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad usii sheergareyn doonto saaxiibadaada aad baan idinkaga mahadcelinayaa daawashada aad daawateen videoga xiga intaan dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu